بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا علي حرسي كعرشة وكم قدر علي كويرة waxaan doonayaa inaan halkan aan maantay hambalyo uga diro barnaamijkii midnimada galmudug iyo xilwareejintii uu sameeyey madaxweynihii hore ee galmudug nabadoon axmed ducaale geelle xaaf iyo xafladii ka dhacday magaalada dhuusamareeb xarunta dowladda galmudug waxaan leeyahay marka koowaad hambalyo waxaan bogaadinayaa barnaamijkaas socda ee looga shaqeynayo midnimada galmudug aad iyo aad ayaana usoo dhaweynayaa waana ku faraxsannahay dhammaan dadka reer galmudugna aad iyo aad ayay ugu farxeen waxaana rajeynaynaa inuu halkaas uu ka sii socdo madaxweynaha cusub ee galmudug axmed qorqorna uu odaytinimada iyo xilkasnimada uu muujiyey inuu dadkii reer galmudug isku keeno uu halkaa kasii wado halkaasna midnimada uu kasii wado shaqooyinka badan ee galmudug u yaalana uu si howlkarnimo leh oo daacadnimo leh uu ugu shaqeeyo bulshada iyo dadka reer galmudug annaga ujeedka iyagu ma ahan shakhsi inaan taageerno ama koox aan taageerno laakiin macnaha iyagu waxa weeyaan inaynu taageerno cid kasta ama qof kasta ama koox kasta ee wax u qabanaysa dadka reer galmudug horumarinaysa deegaanka reer galmudug ka shaqeynaysa midnimada reer galmudug iyo isku keenka bulshada marka shaqo kuma lihin qofkaas magaciisa kooxda uu yahay groupka uu yahay iyo meesha uu kasoo jeedo iyo qabiilkiisa iyo deegaankiisa laakiin ujeedada iyo macnaha aan rabno waxay tahay oo aanu weligan ka shaqeynayna mar walbana aynu ka shaqeynaynaa in dadkii reer galmudug la isku keeno bulshadii reer galmudug la walaaleeyo la horumariyo deegaamadooda la dejiyo meeshaasna dadku ay nabad iyo ka helaan iyo barwaaqo iyo nolol ay ka helaan marka aad iyo aad ayaan u hambaleynayaa dabcan feestooyin iyo xaflado waan dhigi lahayn laakiin cudurkan bulshada halakeeyey ee dadka kala xayndaabay ayaa inoo suurto gelinayn laakiin waxaan hubaa qof kasta oo reer galmuduga oo midnimada galmudug jecel oo wanaagga galmudug jecel inuu maantay iyo caaway iyo xalayba uu ku faysteynahayay gurigiisa xafladna uu ku dhiganahayay anagoo dadkaas ayaa ka mid nahay haddaba marka maxaa la gudboon madaxweyne qorqor iyo dowladda u dhisi doono iyo shaqooyinka hor yaalla dabcan ayaan rabaa inaan wax yar ka taataabto waana shaqooyin aad iyo aad u tiro badan waa howlo aad iyo aad isku dul saaran waa macnaha ii sheeg oo lakabyo sida lakabyada isku dul saaran laakiin rabo midba mar in la qaado oo midba mar la xaliyo oo si tartiib oo feejignaan leh oo taxadar leh loo sameeyo oo ah sida ugu dhaqsiyaha badan in loo sameeyo marka koowaad waxaan kula talinayaa madaxweynaha iyo dowladda uu soo dhisi doono in ay noqdaan dad daljooga oo dhalinyarada wadanka dalka wax ku bartay ee shaqo la-aanta ku ah in marka hore horta ay xilka dadkooda iyo dalkooda ay qabtaan oo ay ka shaqeeyaan ma doonayno nin xamar iska degan ama qurbo jooga oo inta xil loo magacaabay iskala taga xilka ama hoteeladaas la dega ama dana kale ku fushada ama aan u shaqayn dhulka dadka wasiirada laga dhigayo kuwa agaasimayaasha laga dhigayo kuwa ka howlwadanada laga dhigayo waa inay noqdaan dad dalka jooga galmudug jooga ka shaqeeya deegaanadeeda waa inay noqdaan horta taas waa midda koowaad tan labaad waxay tahay madaxweyne qorqor waxa la rabaa inuu ka shaqeeyo horta waxa la yiraahdo ownership ayaan jirin waxa la yiraahdo ownership oo ah horta yaa iskale galmudug aaway dadkii lahaa dadkii reer galmudug ee dhulkan lahaa ee maamulkan lahaa ee dhistay ee usoo dhabar adeegay ee kasoo shaqeeyey aaw marka haddii aan ownership jirin dad lahaansha haddaysa jirin ma jirayso cid ilaashata galmudug ma jirayso cid ka naxaysa ma jirayso cid ay lexjecla u haysa ma jirayso
aniga waxaan ka mid ah dadka lexjalada ay u hayso galmudug, sababtaa waxaana dadkii ku soo dhibtooday muddo badanna ka shaqaynayay inay galmudug hesho maamul, inay galmudug hesho deegaan dowlad leh, inay galmudug hesho deegaan horumarsan, inay galmudug hesho dad yacni nabad iyo ku noolaada barwaaqo inay hesho. marka horta waa in la helaa yaa iskale galmudug, horta waa in la qeexaa, waa inuu raadiyaa ninka la yidhaahdo madaxweyne qorqoor galmudug dadkii lahaa waa in la raadshaa. galmudug yaa iskale, yaa ka naxay, yaa haddii ilaahay kuu ron yahay ay xumaanteedu dhibaysaa, yaa wanaaggeeda ku farxay. marka waxaa la rabaa in arrintaas uu baaritaan ku sameeyo, annaguna aan u sheegin galmudug waxaa iskale dadkii maamulada dhistay ee hore, maamulkii gaalkacyo, maamulkii ximan iyo xeeb, maamulkii ahlu sunna waljamaaca ama central government la dhihi jiray gobolada dhexe, dadkaas ayaa iskale. dadkaasna waxaa la rabaa inay ictiqaadaan inay ayagu galmudug leeyihiin. haddii galmudug arrinteeda loo hoos fadhiisto nin aan lahayn, ama aan qarash ka gelin, ama aan waqti ka gelin, ama aan howli ka gelin, ama aan maamul hore usoo samaynin, galmudug way baaba'aysaa. taas macnaheedu ma ahan dadka kale ee deegaanka degan inaysan galmudug wax ku lahayn. ma deegaan ahaan bay wax ugu leeyihin, laakiin basic ownershipka dadka iskale ee dhul ahaan iyo deegaan ahaan ugu badan ee maamulada lahaa, ee fikirkan keena in maamul la sameeyo, ee hore u qaaday, ee ka soo shaqeeyey, dadkaasi waa inay noqdaan dadka iskale maamulka iyo dowladda galmudug, oo ay ahaadaan dadka u ah gundhiga u ah, ayagoo dadka kale ee deegaanka la degan xaqooda siinhaya, oon ku xadgudbayn, oo waxay xaqa u lahayn u diidayn, oo hadday ku soo biiraan dadka maxaa la yidhahdaa ishag galmudug wax ka yeelanaya la soo dhoweeyey. waxaad garan kartaa shalay Caawudaaq waxaa ka dhacay mudaharaad, dadka reer galmudug ee dhulkan degan ee qabiilada kala duwana muddo badan bay isleynayeen, muddo badan bay dagaalo ka dhexiyey, muddo badan bay qabiil isku dilayeen. marnaba ma dhicin in calanka galmudug la gubo, marnaba ma dhicin in calankii maxaa la yidhahdaa soomaaliya lagu gubo dhulka maxaa galmudug. arrintaasi waa arrin aad iyo aad u xun bay ahayd, mana mudna in la gubo calanka madaxweynaha iyo calanka maxaa la yidhahdaa galmudug iyo calanka Soomaaliya in la gubo. ma kuwo kale waxaa arkay calanka Ethiopia taagtay oo dhahayaan la ka soo gaaray dhulkii Soomaaliya ay lahayd ee gobolka Galgaduud, ayay calanka Ethiopia ka taagsan oo yidhahdeen waxaan ka tirsanahay kilinka shanaad. reer galmudugna waa sheeganaya. halkaas waxaa kaa caddaanaysa in aysan galmudugnimadu dadkaas aysan ku weyneyn, oo la rabo in reer galmudugnimada laga dhaadhiciyo, oo la rabo dadka matala ee galmudug ku matala inay ama reer galmudugnimada ka dhaadhiciyaan dadkaas, haddii kaleeta aysan reer galmudug ahayn ay xilka ay hayaan iska dhigaan. macnahaygu maaha inaad dad riixayo, macnahaygu maaha inaad dad micnaha ishag aan fogeynayo, macnahaygu maaha inaad dadka reer galmudug kala xigsanayo, laakiin waxaa la rabaa dad galmudugnimadu ay ka dhab tahay. haddaan la helin galmudug hormari mayso, galmudug waxba qabsan mayso, galmudug ma noqonayso maamul jira oo la tartama maamulada kale ee Soomaaliyeed, ma noqonayso. waayo maamulada kale waxay leeyihiin dad baa iska leh, dadkaasaa macnaha difaacanaya, dadkaasaa u hadlaya, dadkaasaa raba inay hormarsadaan oo ay degaan oo ay ku noolaadaan oo ay degaanmadooda hormariyaan. hadalkaygu ujeedkiisu wuxuu yahay kuwa hadda galmudug ku mudaharaadahaya dan baa ugu jirta in la helo dad iskale galmudug oo deegaanka dejiya, oo deegaanka difaaca, oo deegaanka horumariya, oo deegaanka ka celiya cadowga, oo xoreeya. haddaan la helin ma la helahayo, ayagana nabad ma helahayaan, kuwa dariska leeyihiin nabad ma helahayaan, deegaankuna horumar lagama helahayo, dan guud wax ka shaqeyna lama helayo. marka ayaga laftigooda dan baa ugu jirta reer Caawudaaq, dan baa ugu jirta reer Ceelbuur, dan baa ugu jirta reer Xaradheere, dan baa ugu jirta reer Hobyo, dan baa ugu jirta reer Gaalkacyo, dan baa ugu jirta reer Cadaado, dan baa ugu jirta reer Dhuusamareeb, dan baa ugu jirta Guraceel iyo reer Galhareere iyo reer Ceeldheer, in la helo dad leh galmudug si loo difaaco galmudug, horumarna loo helo. macnahaas hadalka waa in sidaas loo fahmaa.
yaan loo fahmin in qabiil la riixaya, yaan loo fahmin in dad la neceb yahay. qodobkaas waa qodobkaas. qodobka kale wuxuu yahay markii xasilooni siyaasadeed la helo, markii la helo dad galmudug leh oo galmudug tunimadu ay ka go-an tahay, waxaa kale oo la doonaya waxay tahay oo aan aad iyo aad iyo aad u adkeynaya, dadka reer galmudug waxaa ka lumay dhaqankii. madaxweyne Qoorqoor waxaan kula talinayaa inuu dhaqankii dib u soo nooleeyo, oo dhaqankii runta ahaa ee rasmiga ahaa ee gobolkan iyo dadkan ay lahaayeen la soo nooleeyo, oo dowladda galmudug ay taageerto, oo ay geesaha ka qabato, oo ay dhisto. haddaan dhaqan rasmiya la helin, waxaa dhacaysa in sidii galmudug ku dhacday oo curyaamisay, nin dhaqan koobi ah inta qolo kasta oo dan kale, dana siyaasadeed kale ama dana bulsho kale ama dana kasta kale, inay inta u yeerato ay qalinkii galmudug uga saxiixato, nin aan dadna matelin, deegaanna matelin, cidna matelin, sida haddaba dhacday. waayo waxaa garan kartaa galmudug waxa loo curyaaminaya, loo baabinaya waxay mar walba in laga helo xildhibaano loo qaato xamar oo doorasho gala, oo nin dantiis fuliyo, oo nin doorta. galmudugtii hore markii la dhisahayey, tii dambe 2015 xisbigii xasan sheikh iyo cabdikariin guuleed iyo ay ka tirsanaayeen maha salaad iyo maxaa la yidhaahdaa odawaa ee damujadiid ee dowladda markaa hogaaminayay, ujeedkoodu wuxuu ahaa galmudug hala dhiso, shaqadooda ay ka mid ahayd. laakiin qaabkii loo dhisay galmudug iyo sidii wax loo qaybsaday cadaalad ma ahayn. cadaalad darro weyn ayaa galmudug ka jirta. waxaa ka jira dad galmudug 85% dega iyo dad 2% 1% dega ayaa dadkii 2% degay ka xildhibaana bateen, ayadoo barnaamijka dadkii hogaaminaya ee dowladdii xasan sheikh damujadiid ka fiirinaysa danaheeda, oo ka rabta beelahaas xildhibaana inay hadhow dowladda weyn markii la dooranayo dhexe ay ayaga doortaan. si kastoy tahay, cadaalad darradaas waa loo jeedaa. cadaalad darradaas waa loo jeedaa, wayna caddahay. waxaana tusaale kugu ah maantay ciidamada jooga ee galmudug inay difaacaan, ee xoreeyaan, diyaarka u ah dad xildhibaano ku leh oo jagooyin waaweyn ka haya waddanka, oo madaxweyne ku-xigeenka reer Caawud ah iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo jagada ugu weyn haya. maanta ciidamadoodii iyo dadkoodii diyaar uma aha inay gobolada iyo dhulka shabaab haysto ay wax ka horeeyaan, oo ciidamo keenaan, oo dhaqaale keenaan, oo taageero keenaan. xilalkii ugu weynaana way haystaan. dheeftii waxbay ka qaybsanayaan, iyo xukunkii, dhibkii iyo dhimashadii iyo dagaalkii iyo maxaa la yidhaahdaa ishig dhaawiciina iyo hubkii iyo wiilashii dagaalamayaan waxba ka qaybsan maayaan. taasina waa cadaalad darro. dadka burburiye galmudugtii hore ee Axmed Ducaale lugaha ku dhigay, ee Cabdikariin lugaha ku dhigay, waxay ahaayeen reer Ceelbuur iyo reer Caabud. maantana jooyinka waaweyn ayaga haya, dalka ayaga haya, oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay ka soo jeedaan Caabud iyo Ceelbuur. ciidan wax ka xoreeya dhulkan oo u dhashay, oo Ceelbuur xoreeya, oo haddii Ilaahay kuu roon yahay isha Ceel dheer xoreeya, oo Xardheere xoreeya, waa in laga helo ciidankaas uu noqdo ciidan galmudug oo dhan ka kooban. sida loo qaybsaday xukunka galmudug waa in loo qaybsadaa ciidamada, ma ahan in hal beel lagu gooyo, ma ahan in hal dad kaliya dhibaatada iyo dagaalka iyo ayagu loo dhigo dabka loo dhiga. ma hadalkaasna hadal xaqiiqa oo rasmiya wey, ma ahan hadal aan qabiil iyo dadku aan uga soo horjeedin, laakiin waa xaqiiqda jirta wey. madaxweyne ku-xigeenka waxaa laga rabaa inuu ciidan keeno, waxaa laga rabaa inuu dhaqaale keeno, waxaa laga rabaa inuu hub keeno, waxaa laga rabaa in dadkan dhulkan wax ka xoreyn lahaa inuu keeno. berri markii la xoreeyo inaad geeska ku qabsato tirahda aniga jagadeeda hala siiyo, macquul ma. ra'iisul wasaaraha sidoo kale laga rabaa, guddoomiyaha baarlamaanka gacal sidoo kale laga rabaa. dadkii dalkan xoreyn lahaa
waa in la keenaa. maaha in wiilasha keliya haddii lakuna gaalkacyo cadaadii dhusmareeb loo dhigo xabadda. of course hadday doonaan ha u bataan dhibaato ma lahan, laakiin waa in la helaa dad la dagaalama oo deegaanka u dhashay oo wax ka shaqeeya oo wax ka dhinta oo wax ka dhaawacma oo dhulka guryahoodii xoreysta. dhulku waa reer galmudug, laakiin reer galmudug keliya maxaa qabiil keliya u difaacaya? hadduuse qabiil keliya difaacaya maxaa jagada loogu dayn layahay xukunka in qabiil keliya uu qabto, xukunkiina in lagula qabsado? ya difaacina waxba laga qayb qaadan, xaq ma ahan, xeerna ma ahan, wax macquulana maaha. dhibta iyo dheefta waa in la qaybsadaa. taas waa mid. madaxweyne qorqor waa inuu wax ka dhisaa dhaqanka, waa inuu galmudug dhisaa dhaqan rasmiya, waa in la helaa. waa in la helaa dhaqan iyo dad galmudug iska leh oo u dagaalamaya oo xaqooda u raadinaya, waa in la helaa. tan kale waxay tahay shaqada in la kala qaado. xildhibaanada federaalka ee galmudug iyo senatarada galmudug shaqada axmed qoorqoor waa inaad u daysaan, inaad casha ku qabsadaan maaha. nin walba shaquu leeyahay. shaqada federaalka laydinka rabaa inaad adinka galmudug wixii ay xaq ugu lahayd aad uga soo qaadaan. ilaa 2015 galmudug la dhisay, UN maxaa la yidhahdaa isha Soomaaliya billions lacagaha lagu qarash gareeyay, waxba galmudug kama helin. mashruucyadii dib u dhiska galmudug waxba kama helin. qaxootiga la taageerayo waxba kama helin. dawooyinka la bixinayo waxba kama helin. barnaamijkii degmooyinka loogu talagalay maxaa la yidhahdaa isha JPLG ga la yidhahdo, dabcan waa qof walba uu garanaya dowladda ka shaqeeya ama UN ka u shaqeeya waa la yaqaanaa. barnaamijkaas join UN program on local governance ayaa la yidhahda. ya soo miyna fahma? ama local governance maxaa la yidhahda isha decentralized. waxaa loogu talagalay mashruuca horumarinta degmooyinka Soomaaliya ayaa la yidhaahdaa, oo ay UN-ka ay maxaa la yidhahdaa maalgeliyaan, oo ay taageeraan maxaa la yidhahdaa dowladaha Mareykanka iyo Sweden iyo Denmark iyo Norway iyo waxaas dhan baa taageera. lacaga malaayiin lacaga lagu bixiyaa. waxa shuruudo iyo waxay u baahan tahay, barnaamijyo u baahan tahay. waxaa ka mid ah shuruudahaas, waxaa ka mid ah degmo walba inay dhisato golo deegaan inay dhisato. marka madaxweyne qorqor waxaa laga rabaa inuu golo deegaan degmo kasta ka dhiso. golahaas deegaan degmo kasta markii laga dhiso, waa in doorashada dambe ee galmudug ee dhici doonta ama qorqor ka dambeysa in lagu soo doorto, lagu yimaado baarlamaanku ku yimaado, degmooyin ku yimaado. maaha 4.5 in lagu haysta maaha. cadaalad darra ka dhacaysa halkaas. haddii 4.5 la yidhahdo cadaalad darra ka dhacaysa, horumarina lama helayo. degmo kasta waa in loo sameeyaa maxaa la yidhahdaa isha golo deegaan, gudoomiye baarlamaan, gudoomiye degmo, saldhig, maxaa la yidhahdaa isha maxkamad. markii ay shuruudaha ka soo baxday UN-ka way qoran yihiin. markaas waa in mashaariicdeedii la siiyaa, waa in mashaariicdii la dhisaa, waa in waxaas o dhan la sameeyaa. waxa kaloo laga rabaa dadka reer galmudug waa dad tiro badan. dadka ku nool galmudug iyo dadka muqdisho ku nool, dadka galmudug ku nool baa tiro badan. dhaqaale inay ka sugaan muqdisho maaha. waa inay ayagu dhaqaale iska aruuriyaan oo cashuurtii la sameeyaa, oo cashuurtii la qaadaa, oo la mideeyaa. waa in maxaa la yidhaahdaa dadka guryaha cashuur laga qaadaa, oo baabuurta cashuur laga qaadaa, oo shaqaalaha cashuur laga qaadaa, oo cashuur laga qaadaa hay-adaha qaaska loo leeyahay sida isbitaalada iyo aeroboorada iyo iskuullada. iyo cashuurtaas inta laga qaado, waa in maaliyad national oo maxaa la yidhahdaa isha program leh, plan leh inta loo sameeyo, waa in markaas lagu horumariyaa gobolkii. wixii de ay xaqoo ku leedahay dowladda dhexe ama magaca Soomaaliyeed waa in la raadiyaa. waa in xildhibaanadu aysan galmudug shaqo ka dhigan, ay shaqadoodu ay noqotaa inay dowladda dhexe ay uga raadiyaan mashaariicdii ay galmudug xaqa u lahayd, sida in caafimaadka, waxbarashada, scholarshipka, deeqaha, maxaa la yidhahdaa isha barnaamijyada lagu tababarka shaqaalaha, tababarka booliiska, tababarka maxkamadaha, tababarka barnaamijyada dhan oo horumarineed waa inay ayagu ka raadiyaan oo ka soo qaadaan. biyogelintii hadday noqoto, xanaanada xoolaha hadday noqoto, wasaarad kasta oo dowladdu ay leedahay budget baa la siiyaa.
wasaaraddaas budgetka loogu siiyo ma ahan in ay dhismaha wasaaradda iyo shaqaalaheeda keliya ay budgetka lagu siinaya ma waxa lagu siinayaa wadanka oo dhan ayay matalaysaa. Matalanba wasaaradda xanaanada xoolaha budget baa dowladdu siisaa. Budgetka ay siiso maxay ku qabataa? wasaaradda macdanta iyo biyaha budget baa la siiyaa, maxay ku qabataa? waa in baahida biyeed ee ka jirta gobolka loo diyaariyaa lagana soo qaadaa. waa in baahida xanaanada xoolaha ay u baahantaa laga soo qaadaa. xoolo badan baa wadankan gobolkan ku nool, waa in laga helaa daawooyinkoodii iyo caafimaadkoodii iyo horumarintoodii iyo suuqgeyntoodiiba waa in ay wasaaraddu ka shaqaysaa. wasaaradda kalluumaysiga sidoo kale dhulkan xeeb dheer buu leeyahay, waa inay dad shaqaala u tababartaa, iskaashatooyinka tababartaa, waa inay doomay ku kalluumaystaan ay siisaa, waa inay suuqgeyn u samaysaa. waxaasoo dhan ayagaa laga rabaa inay dadka xildhibaanada ay ka soo aruuriyaan, dowladda dhexe ka keenaan, dowladda galmudugna ay u daayaan galmudug madaxdeeda iyo maamulkeeda in loo daayo. waxyaala marka waxaa jira maxaa la yidhahdaa isheg oo main point jira macnaha ya maxaa la yidhahdaa isheg priority ayaa jira. waxyaala priority ayaa jira. maxaa ka mid a waxyaalaha priority-ga? arrimahaas markii laga soo reebo waxaa ka mid a in dib u heshiisiin la qabto, national reconciliation. samayna fahmin. waxaa ka mid a in la dejiyo establishment of regions, gobolada in la dejiyo nabad laga sameeyo. waxaa ka mid a in la sameeyo reconstruction of economic instructions, dib in loo sameeyo hay-adihii macnaha isheg dowladda dhaqaalaheeda kobcin lahaa iyo hay-adihii dadka shacabka dhaqaalahooda kobcin lahaa. muhiim waxaa ah dowlad waxaa la yidhaahdaa maaha wasiirada iyo xildhibaanada waxaas iyo dowlad maaha. dowladdu waa in la sameeyaa institutions system dowladeed oo degan, waa in la sameeya oo haddii siyaasaddu si kasta qalqal u gasho aan baabi'in. lama rabo in markii siyaasiyiintu isqabtaan waddanka dhan uu kaos galaa, lama rabo. waxaa la rabaa in booliisku uu shaqeeyo, caadi u shaqeeya. waxaa la rabaa in maxkamaduhu caadi u shaqeeyaan. waxaa la rabaa in canshuurta si toos u shaqeyso. waxaa la rabaa in amniga si toos u shaqeeyaan. waxaa la rabaa in ciidamadu aysan siyaasadda ku milmin oo laga dhex saaro. in ciidamada aysan siyaasadda ku milmin oo laga dhex saaro ayaa laga rabaa. waxaa laga rabaa in la sameeyo degmo kasta in loo sameeyo maxaa la yidhahdaa isheg law makers, golo deegaan in loo sameeyo oo sharci. gobolka in golo sharci loo sameeyo, golo deegaan loo sameeyo. golaha sharci ee guud ee maxaa la yidhahdaa galmudugna ay isla shaqeeyaan. oo sharciyadu waa inay dowladdu local decentralization hoos inuu kasoo bilowdaa, degmada waa inuu kasoo, tuulooyinka waa inuu kasoo bilowdaa, degmada uu soo maraa, gobolka uu yimaadaa, kabacdi uu maxaa la yidhahdaa uu yimaadaa dowlad maxaa la yidhahdaa isha baarlamaanka galmudug uu yimaadaa. baarlamaanka galmudug markuu yimaado oo baarlamaanka galmudug uu sharciyo inuu baarlamaanka weyn u gudbiyaa. dowladdu nidaamka sidaas wey. hadday sidaas loo shaqeeyo weligeed si karays ma dhacaya, dowladduna way shaqaynaysaa, siyaasiyiintu baa isbebedelaysa, hadday doonaan iska qabsadaan, sharci bay ku kala baxayaan. waa kale soma. waa in wasaaradda waxbarashada lala xiriiraa oo iskuuladii dowladdu lahayd ee ku yaala gobolka degmadan maxaa la yidhahdaa dowlad goboleedka galmudug waa inay wasaaraddu dhistaa oo macallimiin usoo tareynaysaa oo macallimiinta ay shaqaale mushaarkooda bixisaa. mushaarkooda ay bixisaa. taas waxaa kuusii dheer in la helo social and public service, waxyaalaha oo dadku u baahan yihiin. aqoon male dadku, iskuulle ma jiraan, caafimaad ma jiro. waa in degmo walba caafimaad laga dhisaa, iskuulle laga dhisaa, dadka wax la baraa. maxaa la yidhahdaa isheg social improvement, maxaa la isheg la sameeyaa, maxaa la yidhahdaa improvement. shaqo abuur waa in la sameeyaa. biyogelin waa in la sameeyaa. biyo macaan oo nadiif waa in dadku helaan. waa in la helaa meelo maxaa la yidhahdaa isheg waxyaalaha la yidhahda isheg waxyaalaha la yidhahda isheg public affairs of relation centers.
ama waxa la yiraahdo maxaa la ishag maxaa la yiraahdaa public offices meelo dadku dadweynuhu ay cabashadooda kusoo gudbiyaan oo ay kusoo gudbiyaan dhibaatada ay qabaan oo danahooda ka shaqeysa oo u dooda waxa dadku waxay dhihi doonaan wuxuu ka hadlaya dowlado horumaray iyo waxaasi xaggee dhaqaale laga keenay dhaqaaluhu dadka ayuu ku dhex jiraa laakiin kaliya waxay u baahan tahay maamul iyo organization in la sameeyo iyo si wanaagsan in loo aruuriyo iyo si wanaagsan in looga shaqeeyo think about meeqa gaari ayaa galmudug waxay ku taalaa central of Somalia baabuurta waqooyi u socota iyo kuwa koonfur u socda iyo kuwa u socda maxaa la yiraahdaa ishag kilinka shanaad Soomaali galbeed meeshay maraan kaliya canshuurta haddii la aruuriyo oo la mideeyo oo wadooyinkaas lagu dhiso oo maxaa la yiraahdaa ishag canshuur yar laga qaado adduunka ma jiro baabuur iska socoto oo aan canshuur bixin ma jirto canshuur sanadlaha la baxshaa canshuurta wadooyinka ay ku maraan waa la bixiyaa canshuurta lahaanshaha la baxshaa laysanka la baxshaa maxaa la yiraahdaa buugga oo lahaanshaha warqadda canshuuraadka maxaa la yiraahdaa guryaha meheradaha gaarka loo leeyahay diyaaradaha waxaas oo dhan lacagaalaha ka soo aruuraya galmudug ka soo aruuraya kuwa xamar ka soo aruur ka badan yahay xamar meeqa laga qaadaa $42 million ayaa per month laga qaadaa divide by 4 afar u qayb hal haddaan qaadano bal ka war ya waxaan aaminsanahay in canshuurta galmudug dadka magaalooyin waaweyn galmudug leeyahay gaalkacyo ka mid ah bandiiraley galnisoor cadaado godin labe dhuusamareeb maxaa la yiraahdaa gurceel xaladheer haddii la xoreeyo hoobyo dhulkaas oo dhan haddii laga aruuriyo canshuuraad wanaagsan laga aruursho oo dadkana hadhow dib loogu celiyo canshuurta dadka haddii inta la iska qaad jeebka la gashto waxba ma tarayso haddii dadka loogu shaqeeyo wax badan bay ka soo saaraysaa in dadka dibadda jira iyo dadka gudaha jooga iyo kuwa muqdisho jooga ganacsatada account loo furo oo lacagaha ay ku soo shubaan maxaa la yiraahdaa ishag ka qayb qaadanaya horumarinta galmudug caawimaadda dowladda ya waxyaalahaas oo dhan waa in laga shaqeeyaa oo dowladnimo la dhisaa oo xabsiya la helaa xabsiya la dhisaa saldhigya la dhisaa booliska laba ciidan la sameeyaa boolis iyo daraawiish la sameeyaa booliska uu tababar lasoo siiya ka shaqeeya waxaas oo dhan marka waa steps isku horyaalo waa shaqooyin isku horyaalo laakiin shaqadu waxay ka bilaabanaysaa marka hore in la helo vision dowlad sideeda waxa lagu fiirshaa yiri 9 bilood ugu horeysa haddaysan shaqayn dowladda galmudug way baaba'aysaa waxba ma shaqaynayso dadku inta ay waxa la gees biciid kuleelka lagu gooyaa dadku inta ay rabitaankoodu uu diyaarsan yahay rabitaankoodu intuu diyaarsan yahay waa in laga faa'iidaystaa dhalinyaradan shaqa la'aanta iska hayso waa in lagu shaqeeyaa program xataa waa in la sameeyo maxaa la yirahdaa work for food la yiraahdo meel baa cunto badan loogu karinayaa cunto weyn baa cunta loo karinayaa jidadkay dhisahayaan wadooyinkay xaaqahayaan geedahay abuurhayaan maxaa la yiraahdaa ishag environmentiga ay ka shaqaynayaan wadooyinkay wax ka dhisahayaan soo miina fahmin yacni iskaa wax u qabsoo kale iskaa wax u qabso meeqa galmudug dhalinyaro iska fadhida wadamada waxba qabanin kuwa jooga dhuusamareeb iska fadhiya waa inay jidka xaaqaan oo dhagxaanta ka qaadaan oo maalintii ay shaqeyn laakiin cunto la siiyaa haddaan salary la siin karin waa in la yidhaha work for cunto ku shaqeeya cunto iskuullada wax ka dhisa maxaa la yidhahdaa jidadka xaaqa wadooyinka wax ka sameeya digsi weyn inta loogu kariyo maxaa la yidhahdaa cambuuliyo qamadi iyo looga buuxsho cunaha la yidhahda ya ha shaqeeyaan dalkoodan ha dhistaan ilaa intuu waddanku ka dhismaayo oo maxaa ishag dhaqaale laga helaayo oo waxbarasho laga helaayo oo uu hormarahay dadka reer miyiga waa in loo geeyaa daawooyin loo geeya ay xoolahooda ku durtaan oo ay hadday ka jiradaan ay ku daaweystaan waa in ceelal loo sameeya waa in amnigooda laga shaqeeya saysan isku laynin oo daaqa ay u wada qaybsadaan oo biyaha u wada qaybsadaan oo ay nabad iyo amni ugu noolaadaan waa in sharciga iyo qofka aan cidina u dhaxayn oday kaaba qabiiloo soo ordo maxaa la yidhahdaa wiilkan hadduu dad dilo diyaan bixinaynaa
aan maxaa la yirahdaa ishag annaga qabiilka la xaajoonay waa in is jiro qofkii qof dilo waa in la soo qabtaa sharciga la keenaa maxkamad la saaraa wixii uu mudan yahay la marsiya dawladdu waa inay ahaataa dawlad wax qaban karta laakiin hadday iska fariisato xafiisyada iska fariisato ama ay iska aado xamar iska aado ama ay Nairobi iyo xamar u dhaxayso ma shaqaynayso marka waxaa laga rabaa inaad dawladda fariisisid inaad institutions dhistid in aad gobol kasta dawladda aad faafisid oo good governance aad samaysid oo hoos ka soo bilowdid dadku maanta waa diyaar midnimo ay haystaan jaanis baa haysataa waxaa u maleynayaa jaaniskan inuusan soo marin qof reer galmudug oo galmudug ka shaqaynaya marka jaaniskaaga inaad ka faa'iidaysatid oo aad ayaan kuu rajaynayaa aad wax ka qabatid nin dalka iyo dadka wax ka ogbaanata waxa kaloo jirta haddaan la helin dhaqan rasmi ah waa ku soo celinaya dhaqan rasmi ah haddaan la helin si kasta oo loo qabto dib u heshiisiin waxba kama hirgelayaan maxaa yeelay nin aan dhaqanka dadka matelin haddaa inta meesha soo fariisisid oo hadlo wax iska sheego oo go'aan soo qaato oo uusan dadkii iyo deegaankii uu ka yimid uusan go'aankaas kula noqon karin oo aan ciidina wax ka dhageysanayn dib u heshiisiin dhici mayso that's why aan ku leeyahay sababtaas aan ku leeyahay raadi dadka dhaqanka rasmiga ah qabiil kasta iyo jufo walba way taqaanaa odaga matala kuwaas adna waa taqaana inta xabad u raadisid oo isku keentid oo hoggaan u samaysid waa inay ayagu ka shaqeeyaan nabadda iyo amniga ka shaqeeyaan magaca ay wataan ee nabadoonnada ah waa inay si rasmiya uga shaqaysiyaan waa inay si rasmiya dadka ay wax ugu qabtaan waa inay si rasmiya dawladda ula shaqeeyaan amniga wax ka shaqeeyaan dadkoodana ay nabad iyo amni u keenaan haddiise kuwa koobiga ee qalimada iska wato calooshooda u nool ee marna loo wato muqdisho marna loo wato meeshii rabo loo wadanaya aad ka dhigtid sidii haddii ilaahay kuna dhuusmareeb ka dhacdo kale ayaga aad ka dhigtid nabadoonno waxba kama hagaagahayaan gobolkana nabad noqon maayo dawladdaaduna shaqaymayso amnina lama helayo marka waa in dadka rasmiga ah ee amniga rasmiga ee dadka rasmiga ee wax goyn kara waa inaad raadisaa waa inaas ayagu kuwii ay kuu keenaan ku yiraan dadkaana anagana matala ee xildhibaano noo ah aad ayaga ka yeeshaa oo la shaqaysaa ma ahan inaad qayre iyo farmaajo waxa ay rabaan ama ninka kale imaan doono waxa uu rabo gobolka inuu ka shaqeeyo ma ah dhaqaalahan kaa jaraynaa iyo waxaasan ka jira dhaqaalaha ma jari karaan dhaqaalaha hadday jiraan waa in xildhibaanada gobolka matala ay la xisaabtamo dhaqaalaha markay jirayaan ma qayraha jeebkiis ka bixinaya mase farmaajo jeebkiis ka bixinaya dhaqaalahan waa dhaqaalo Soomaaliyeed waa dhaqaalo Soomaaliya la siinaya ama waa mid Soomaali leedahay ma diidi karaan sharcina uma laha xaq inay diidaan awoodna uma laha sharciyan hadday diidaan waa in xildhibaanada baarlamaanka ku jira ay motion ka geeyaan oo ay la hadlaan yiraahdaan sabab maxaa ku diidaysaa maxaad ku diidaysaa waa inay si matalaad rasmiya ay muujiyaan mana sharciyan iyo xaqiiqiyan uma laha siyaasadda haddii gobol reer galmudug oo dhan ay qayriyo farmaajo kasoo horjeestaan xaqa ay reer galmudug dowladda dhexe ku leeyihiin ma hor istaagi karaan sharciga iyo dowladnimada ayaa sidaas dhigaysa maxaa yeelay ayagu jeebkooda kuma lahan laakiin ayagaa laga rabaa qayriyo farmaajo intay yimaadaan galmudug inay siyaasadooda ka gadaan inay dadka la hadlaan inay ka gadaan hadday ka gadi waayaan dee waa inay iska tagaan hadday ka gadaanna waa inay kula shaqeeyaan dadka reer galmudug laakiin barnaamijyada mashaariicda horumarintooda ma hor istaagi karaan dhaqaalahooda ma hor istaagi karaan hadday hore iskugu dayaanna waxaa dayacay kuwii xildhibaanada ahaa ayaa dayacay xildhibaanow marka shaqadiina qabsada shaqadiina waa inaad muqdisho ka shaqaysaan senataradu waa inay dowlad goboleedyada ay matalaan xildhibaanaduna waa inay shacabka ay matalaan reer galmudug xaqooduna waa inaad soo saartaan miiska qayrana ma diidi karo farmaajina ma diidi karo dowladnimada ayaa sidaas haddii dowladda awood ay isticmaasho tiraha anagu ma sameyn dowladnimo ma jirto markaas nin maskaxdiisa sharcigiisa ayaa lagu shaqaynaya waxaasna waa wixii galmudugna baaba'shay soomaalina dib u dhigo wey marka shaqada waa la kala leeyahay xildhibaano shaqada qoorqoor u daaye wixii uu idinkaga baahda ka caawiya shaqadiina qabsa qoorqoorna waa inuu shaqadiina idiin daaya sidaasaa marka lagu kala badbaadaya sidaasaa horumar lagu gaaraya sidaasaa lagu kala shaqaysanaya sidaasaa la iskula shaqaynaya wixii dowladda dhexa ku xiran ee qoorqoor ay dowladdu ka hor istaagto xildhibaanadu waa inay u istaagaan yiraahdaan maxaa dhacay xaafisi qayri farmaajo la tagaa yiraahdo waso qoorqoor hadda siyaasadda isku fahmi weysaan ma qoorqoor ma deegaanka galmudug dadka ku nool oo dhan baa u cunaqabataynaysaa aqli maaha aqoonna maaha wax la iska yeelahayana maaha sharci iyo dowladna maaha maxaa yeele dowladda ma lahan maxaa la yirahdaa qayrihi farmaajo ma lahan
waa shaqaale u shaqeeya galmudug wey, shaqaale u shaqeeya ummadda soomaaliyeed wey, shaqaale u shaqeeya dadkii doortay wey. Yeah, is our server.